وعبد الساق أحمد جامع ومحسنتين بهذا الساب تي في قروي هذا كبلا باركتي كسابسن رئيسنا الصومالي مقعد مدحونا الصومالي دوان مستر حمزة aad baan soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay waa mas'uul Soomaaliyeed wuxuuna xaq u leeyahay inuu qabtay jagadan sida dad badan ay ugu tartamayeen oo codsiyada u geysteen madaxweynaha waxaana ka rajaynayaa inuu Soomaaliya ka sababta bixin doono marxaladan ama checkpointigan ay taagan tahay inuu hore uga dhaqaajin doono marka waxaan hadda u diranaa kaliya waxa way soo dhaweynaya hambalyo iyo in Ilaahay xilka ku asturo ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu qaaday dadka qaarkiis waxyaalo bay iska sheegayeen waxay ku leeyihiin ra'iisul wasaaruhu xageebu ka shaqeyn doonaa marka waxaan leeyahay ra'iisul wasaaruhu ka shaqeynayaa Garowe Jigjiga Kismaayo Xamar iyo guud ahaan dalka waa inta Soomaaliya uu ka shaqeynayaa dariga kursiga ra'iisul wasaaraha lahaa buu ka mid yahay xaqna uu leeyahay ma jirtana cid maaragtay si gaar ah u dhigi karta ra'iisul wasaaruhu kuma matali kara dawladda Soomaaliya waa